السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا دمان وسلامتين ميل والبا الدنيا كجوكتين وتيم بوجو بويز ومانتو وحاوا وطدن رجنا دي سيدا أو برتين وحاوي إن تيم وضع هانو إنكستو هدي سيدا عربنا معناها أنا فيديو أنا أسوق قلنا وأنا نيجا مشغولين ونقرأ قلنا أنت سنا نيجا ما تقرب كيتين وقرني سندل بوجو كسرو صاحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين دمان تيم إن فانو الفرق مقدنا channel كداوني سنا بوجو تيم إن شاء الله برنامجنا سيدا عادة وسيقود قلنا وحبذنا وصونا إن شاء الله نصعد. marka asxaabta waxa kale oo idin sheegaynaa hadda waxa la taagana microphone sida arkaysiin magaalka waxa barnaamijkeena in aan micnaha asxaabta oo magaalada joogto oo aan su'aalo aan weydiino anaka noo diyaarsan marka hadii waad la soconaa asxaabta haddana waxa weydiinayna su'aasha yarkan walaal adigoo ku bilaaway magacaaga waxaa la yidhahaa Amiin Axmed Amiin waxa ku weydiinayaa su'aashan maxay tahay jecel maxay tahay ka helitaan maxay tahay rabitaan oo kala qadqaadayo والله أنا هرت جعلك وبدني هاي صح جعلك ميدو حاجة دارين له صح ميدو حاجة محلي يجري اسك جعله اسك عادي أو لقيه إن تهيدا أو قبته أباها أو قبته ولا لك أو قبته صح ميت كله واللي أنا وجرا صح هو محلي يجري أدو قادسه ها أدو قادسه قف كأذيك معناها جبرت أرجع شيء أما قبل ويلك أرجع شيء أو معناها أي قادسه كاسن أنا وقنا جعلك والذا اوكي maxay tahay ka helitaanka marka walaal كهلتانك وح مارتي أذيك معناها كعجبية أما بكو قنعية ياد معناها مركز أيضا ياد كهليسة ومركز أيضا كوجه الرئيسي واحد هراء وصارك تماها واحد مركز أيضا كوجه الرئيسي صح يا معناها إيش هذا سوجي ذنا معناها it attracts you بالولا مال إنجليزي marka maxay tahay rabitaan aydana أنا صومالي ما أخانو لكن إن هذا اسكو داير ربيتانك ووح نفط هذا أباهن واحد أباهن تباهي أو قبته صح for example هذا عنتوك هذا أباهته ودربته سما صح إن ساس الربيتان اوكي walaal ku maasantahay thank you هذا التنوع عاودينا ويلكم نوحي أبو هذا كبلا مجاعة magacaygu cabdiraxmaan waxaa ka mid ah dhalinyarta magaalka عبد الرحمن وما تنتهي هرت سيدا وقتها في عن نورتي سؤال سدع سؤال أو سدع سؤال شو هو معن كويدنا وام حي جعل وام حي درين وام حي كيلتان jacaylka waxaa waaye horta jacaylka haddii waadhka sidiisa lagu tafsiira jacaylka waxaa waaye kalsooni oo waxaa waaye qofka oo aad iska dhaadhicisid inaad adiga nafsadaada siin karto oo aad ku kalsoonaan karto وام حي كيلتان keelitaanka waxaa waaye qofta horta keelitaanka noocyo badan uu leeyahay waxaa jirtay ku arko ku caashaqay marka qofka ay gaad aragtida camal oo aad nafsadaada ay ku tusisid inaad qofkaas la noolaan kartid inaad qofkaas waqti siin kartid oo aad adiga nafs ahaantaada ay ku qanciso nafsadaada ay leedahay nafsadeeda qofkan way ogoshahay وام حي الربيتان rabitaanka waxay tahay qofka inuu horta aad dareen leedahay oo aad leedahay qofkan ku meel gaar ma noqon kara mustaqbal uu noqon kara oo aad leedahay dareenan u qaaday oo waqti badan taan la qaataan meel la degi kara amal وما تنتهي haddana waxa weydiinaynaa su'aasha yarkan daayirka ah walaal adigoo magacaaga ku bilaawayo magacaygu waa Cabdisalaan Xasan Mascuud cabdisalaan waxa ku weydiinayaa maxay tahay jacayl ka helitaan rabitaan adigoo micnaha xabaabad u kala qaadayo horta jacayl waa qof marka jeclaato jacaylka luu sheegana saaxiibtinimada ka bilaabataa صح mid labaad ka helitaan waa qof aa ka heshay waa qof ma jeclaan laakiin waa ka heshay aragtiisa ka heshay صح rabitaanna qofka waa rabtaa laakiin waxa ka rabta ma garanaysaa صح qofkaadi waa rabtaa niidaa rabtaa waa iska jeclaat ma jeclaanade waa ka heshay camal waa iska rabtaa saas waan gartay ay marka ka helitaankana ka helitaanka qof waa aragtay waa ka heshay adi muuqaybsa ku qanciyo qofka ay ku qancis camal waa ku qancis way ma sha Allah walaal ku maasantahay هذا التنوع سوق وانا ويلك دليرada in asaga su'aashu uu si hor mar doona magacaaga ku bilaw magacay waxa la muhaazil faada la dhaha su'aalaha wadana waxa kamid ah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo saddex su'aal oo isku xiriirsanin su'aashu hore hadii aan ku weydiiyo diyaar ma tahay diyaarun su'aashu horena ka jawaab waa maxay jacayl waa maxay rabitaan waa maxay keelitaan jacaylka horta waa wax qof bini aadanka ka soo go'o صح
oo qof gabadh mise wiil ahaado mise gabar ahaado ka helitaanna waa qof bini aadam wuxuu ka hela camal oo kale rabitaankana waa qofka ama wiilka mise gabadh wuxuu rabo camal oo kale wuxuu jeclaado waxaas waa mahadsantahay kusoo dhawo barnaamijka waa mahadsantahay walaal adigoo ku bilaabaya magacaaga magacaygu waa cabdishakuur oona waxaan ku magac dheerahay shukranze cabdishakuur waxaan ku weydiinayaa 3 su'aal maxay tahay jaceylka helitaan iyo rabitaan saddexdaas su'aal waxaa rabaa inaad iga jawaabto hadii macnaha aad ku dayba waan isku dayaa walaal jaceyl ka helitaan iyo rabitaan miyaa dhah jaceylka ku bilaw kow jaceyl waa qof oo si kal iyo laab oo hesha camal kalgacayl qof nolosha la wadaaga rabto waay helitaanka waa qof yani andhaano aragtida camal qof baa indhaha soo jiiteen marka waa ka hesha qofta rabitaanka waa waxa yani nafta rabtaabo markaas u baahan tahay wax saa u siweyn ma waxa rabitaanka Sabia